هذه يوم محسن يا علي وحكري ويريا حتى dadka reer Puntland degan oo dhan ayagoo aan jamac ahaan u taabanayo oo ay ugu horeeyaan una qiimo badan yihiin una qaalisan yihiin ismada Puntland ismadeedan u baaxsaraya udgoon oo Puntland ismadeedan u baaxsaraya udgoon ee Ilaahay edanka ku aabada sharaf ibyoon udub dhaxaad yada tambunte lan uroreyo ehelu sharaf yada tan iimaanka badan loho alla aqoon hufnaantiina alle ugu mahadnaqra guddigu qaabko oo waday hawsha qaaliga war guddigu qaabko oo waday hawsha qaaliga qorshaha deganaanta qaban qabadee hufnayd qabsamidii doorashadu qiimaha ilahayd cod qaadidii dimuqraadinimadoon ku qanacsanayn حمدا مقر إله النقالقا هاول كرادة عيدا مغداه كنكو أهو ورهول كرادة عيدا مغداه كنكو أهو نبده يجدا بنتيلان كهرديو هذه يجر جسيادان سحنو هرددا ويدين هوينا لهم باليان ويدين كونيري رجي بدلان سوهاجاتيو رجي بدلان سوهاجاتيو هنبل يبحدي الدعان هو يدين كونيري فرولي أبال كان كوهينو وامهاري هل يجي يوكونو حرقو هانتيا Puntland barlamaankii hore bawdo nagama jabin Puntland barlamaankii hore bawdo nagama jabin budhigayaashiina maanta dhisnow birmada Puntland barlamaankii hore bawdo nagama jabin Puntland barlamaankii hore bawdo nagama jabin budhigayaashiina maanta dhisnow birmada وحقبت بحب وحقبت بدن برينو بحب بقولكي بقول بايبل شادو سوغيانو ساساينو بلما وحاد سلايقا سونا بارتانو باهناي بدلان هرو ماريا عداو قدها بابي بدبادي قرن نخان كوكو حراي بلادا رجينا الكمان تلوارجا يو حفتيا ورجينا الكمان تلوارجا يو حفتيا حد قدوبك يو عبتك إلى شاو حفظا نبدا والله حياة يدابو حفظا دقالها حوش بلشادي إنها حمددا سياسة دان حرق وريقا سحرا ودقا مدني ماذا الله حمدي يا حمان تستوركي يحرك بنتلن حرير كددا وهو يقرن حول شديد بطلان حفظا يقدم هنو كاوش انت سامي
ganacsatada reer Puntland oon kaalintoodii gabin ganacsatada reer Puntland oon kaalintoodii gabin gashan qadyadan u dhigaya xariir gengeman gurmadka culimadana maan garasiin hayaa gabdhaha indheer garadka shacabkan guddooma oran wax qabadkeed geysanahaysan jannada ku galaa waxaan gelayaa wasiirada cabdiweli dhisay wasiirada cabdiweli dhisay oo aad iyo aad iyo aad u qiimo badan oo u qurux badan oo u farxad badan oo aan leeyahay garashadu kaama lunto rabbina kuu gargaariyey wasiirada dhistaan soo dhowayn hayaa oo wasiirada dhistaan soo dhowayn hayaa oo cadaalada saad u dhowrtan dhaliil lahayn dhaqan xumaantaad la diriirtan xariir dhexdhegin gaasow sharafaan dhammaanayn dhexdeeda joog wasiirada dhistaan soo dhowayn hayaa oo wasiiradana dhistaan soo dhowayn hayaa oo cadaalada saad u dhowrtan dhaliil lahayn oo dhaqan xumaanta aad la diriirtan xariir dhexdhegin gaasow sharafaan dhammaanayn dhexdiisa joog cilmiga garashada rabbi baan gaasirkaaga dhigin oo cilmiga garashada rabbaan gaasirkaaga dhigin oo cadaalada inaadan gabin baad go'aansataa oo midnimadaas goosho ku jeedhaad gardaadsan tahay gaasow gobanimo iyo qaran baad u gayfan tahay go'aanka faroolan ubax faroole waa nin qaaliya horena qaali buu ugu ahaa haddana qiimuu ku darsaday waa ku jecelnahay oo ku jecelnahay oo ku jecelnahay nolow oo nabadgal oo nagaad oo Puntland dhanna ha uga bixine wax ka dhis go'aanka faroolan ubax saraya gengeman xariir bay ku goglayaan Puntland gediba mawd kuma gambeeyeheyo guul xambaarsanow go'aanka faroolan ubax saraya gengeman oo garoonka faroolan ubax saraya gengeman oo xariir bay ku goglayaan Puntland gediba mawd kuma gambeeyeheyo guul xambaarsanow salaamo jaaliyada Soomaaliyeed aan dhigi karo reer Denmark aniga laftirkay reer Awsme ahi meel idinku dhowaan ka imi aad iyo aad u mahadsantihiin wajiyada kala duwan iyo dadka guddiga oo soo qabanqaabay meeshan quruxda badan salaanta haddaan ka gudbo waxaan jeclahay inaan ugu horeyn aan dhaho waxaan tacsi u diraynaa ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ilaahay waxaan uga baryaynaa oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho inuu godkiisa u qaboojiyo oo uu jannadii firdawsi geeyo dabcan waan garan karnaa qiimaha uu ku leeyahay ummadda Soomaalida dhexdeeda inta haddaan ka gudbo ujeedka xafladeena caawa aan isugu nimi oo ahaa u hambalyeynta dawladda cusub ee Puntland ka hana qaaday iyo isbedelka dhacay iyo sidoo kale in la sogootiyo ama loo mahadceliyo madaxdii hore iyo xukuumaddii hore waxaan jeclahay marka hore inaan dhahno hambalyo madaxweynaha ugu horeeyay xukuumadda cusub Professor Gaas ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Camay iyo guddoonka baarlamaanka runtii waxaan dhihi karnaa culays weyn iyo mas'uuliyad baa qaadeen waa idinku hambalyeynayna waan idinku ducaynaynaa in ilaahay mas'uuliyadda culus oo aan garan karno maanta xaaladda Puntland ay marayso
iyadoo runtii aan dhihi karno meel fiican bay maraysa haddana u baahan in waxyaabo badan wax laga qabto oo shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa reer Puntlandba ay idin soo fiirinayaan inaan idinku duceyno inaad maaragtay gudataan baan leenahay anigu guddigii sidii walaal Cawl uu sheegay baan kamid ahaa baarlamaanka Soomaaliya soo xulay ka horna Puntland wadanka dhawaan baan ka imi marka halkan joogo waxaan dhahay iska atoora baadiyaan ahay wax yar baan joogaa wili waxa weeye udgoonkii dhulka iyo ciidiba iga uraya wax dadaal badan baa runtii loo soo maray baan dhihi karnaa ha noqoto dawladda maanta Soomaaliya jirta iyo quruxdii ka muuqatay doorashadii Puntland ururada bulshada rayidka ah hay'adaas baan director ka ahaa runtii dadaal badan baa loo soo galay in waxaan ku dhahaa isbedel xor ah oo dimuqraadiyad ku saleysan uu yimaado oo horseed u noqda federaalka Soomaaliya oo in badan dadka Soomaalida ah iyagoo ku mahadsan ay dhahaan Puntland waa hooyada maamul goboleedyada iyo meesha loo socdo yani meesha iftiinkaas uu ka soo bilaabmay ayay ugu horeysaa waxaan leenahay marka waxaan fiirinaynaa maxaa expectation ama saadaal ah oo dadku niyadu ka hayeen oo ay ka fili karaan isbedelkan dhacay sidii madaxweyne Gaas uu hadda khudbadiisa kaga dhawaajiyay isbedelku ma ahayn in qof kursiga faroola uu tago oo Gaas yimaado laakiin isbedelka aan isleeyahay inta qurbaha joogtay inta dalka joogtaba way filayaan waxa waaye isbedel ku dhisan system dimuqraadiyad ku saleysan cadaalad ku saleysan iyo sinaan iyo in la raadiyo sida dastuurkeenaba inuu ku qoran Soomaali weyn marka waxyaabaha ugu horeysa oo laga fili karo waxay ahayd bal xukuumadda uu soo dhisi doono madaxweynuhu in la fiiriyo dad badan way u hambalyeynayeen anagoo hambalyeynayna oo runtii asxaab badan aan garanayo oo tayada u qalanta meeshaas in ay dadka hogaamiyaan ay ku jireen haddana tiradu way badnayd taas waxaan is dhihi karnaa tirada oo badnayd laakiin quality-ga dadka oo fiicnaa baa intaas isku fuuqsanaysa maaragtay tira badnaantii oo taas bay dadku ku ilaawi karaan sidoo kale waxyaabaha laga fili karay madaxweynaha oo haddana aan anigu dhihi lahaa waa laga filayaa bal goortu ka jawaab waxaa kamid ahayd shirkii uu ku soo galay campaign-ka ee shirkii qaran ee reer Puntland maadaama waxyaabaha hadda ugu muhiimsan iyadoo xukuumadii hore madaxweyne Faroole aan leenahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay maanta meesha quruxda badan iyo ammaankaas iyo ciidanka dhisan ee quruxdiisa Soomaaliya oo dhan ay eegayso inta wanaaga jecel iyo horumarka la gaaray iyo waxbarashada iyo international community-ga Puntland si ay ugu xiranta xiriirka dibadda intaas oo dhan xukuumaddiisi baa keentay haddana daldalooladii jiray iyo waxyaabihii campaign-ka lagu soo galay wuxuu ka ahaa qodob muhiim ah taas oo ugu baaqaynaa madaxweynaha waana uga fadhinaa in la raadiyo midnimada dadka reer Puntland yani qofka bini aadanka waxa ay ka maqan tahay ma dhama marka Puntland waxaanu leenahay wali ma dhamin meel fiican baanu maraynaa horumar Soomaali ay kaga dayan karto waa ogtihiin doorashadii odayaalka iga horeeyay ka sheekeeyeen wanaageed iyo cadaaladeeda yani inay keentay in dad badan ay boorka ka jafaan oo maanta aan dhihi karo xataa federalismkii alxamdulillah dadkii diidana maanta xataa way aqbaleen markay arkeen Puntland sida ay tahay oo dadkii Soomaaliyeed maskaxdoodii way isbedeshay hadii ba aan sisaan dadkan ay gaareen nin Soomaaliya Afrikaan Soomaaliya oo haddana hal cod la yiri waliba wuu xumaaday codkaas la leeyahay wuu aqbalay oo haddana awoodii oo isagoo gacanta ku haysto cid kale oo ilaalinayso oo ku khasbaysan aysan jirin ay tahay rabitaankiisa iyo albaxnimada iyo wanaaga dadka lagu yaqaano waxay tustay ummadda Soomaaliyeed waxay didiilo leh inuu yahay federalismku runtii aysan ahayn wax qoys ama qabiil lagu riixo sidii dhici jirtay iyo doodii aan soo marnay oo dastuurkii Soomaaliya lagu soo dhisay inuu maanta noqdo mid guud oo banaadir aan maqlaysay maaragtay wixii ka dhacayay iyo shirar ka socday gobolada South Centralka inta kale wixii ka socday marka taasna waxaan leenahay waa mid ummadda reer Puntland iyo hogaankooda isimada haweenka maxaan ku dhahay ay ugu horeeyaan oo ay keeneen taas marka midnimada ah waan raadinaynaa wanaagaas iyo ku dayashada aan leenahay role model baan u nahay federaal ha noqoto ama Soomaali wanaageed ma dhameystirmay ilaa Puntland ay dhameystiranto marka waan ku celinayaa madaxweyne Gaas taas waan ka sugaynaa qodobka kale waxa uu yahay waan isleenahay madaxweynaha waa looga fadhiyaa oo iyaduna muhiim oo meesha ku jirta bal xiriirka federaalka iyo Puntland sida uu noqdo annagoo og professor Gaas oo anigu waliba muddooyinka ugu dambeeyay aan ahaa shakhsi si fiican u barto la soo shaqeeyay waqti adag wadanka ka saarayay anaguna shaqo muhiim ahaynay oo aan bartay inuu yahay marka laga yimaado aqoontiisa iyo kartidiisa haddana shakhsi xaaladda Soomaaliya maanta ay ku jirto dulqaad leh
inaanu fiirino oo aad arkaysaan xataa inuusan ahayn dee nin qabiil ama nin gobol ama nin maamul goboleed uu yahay nin qaran oo looga dabaaldegaya dalka iyo dibadda meel kasta Soomaali ay joogto waxaan rajaynaynaa xiriirkaas oo muhiim ah oo muddo maqnaa meesha ka baxay in uu Cabdiweli noqdo shakhsi runtii waxyaabihii la isku hayay xal kala gaara madaxda Soomaaliyeed hal midna waan jecelahay dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed inay u cadaato marka laga hadlayo xiriirka maamul goboleedka Puntland iyo federaalka waxa la isku hayay ma ahayn qadiyad shakhsi ka dhaxaysa يعني ما أهين قضية فرولة يحسن الشيخ إسايست ما أهين لكن وحي أهيد أو أي تاي دمانت إنه ودفعنا قضية إنترست مامول قبلات يدين جودة الصوماليات مجتمع هكا كل دقن مامول كهدي شراء الدولة الصومالية بوها إنتاسا لو فهمه ومعناها أي سنة هاين وحياة بدنا مركز السوشيال ميديا هذا كقرقريان أما وبصيدية ذا سكر الله فسرية مركز تاسمي سنة هاين قضية در بنتلان ويضع عن سلاه وحياها اللي سكويس واحد كم إذا دستور كصوماليا وبنتلان أي عن سلاه وحي يعني تاجرس ودرب وهاي دستور كصومالي إن الواحد قدبين كم الجار كدي لقى بحو حيابين لقوه الشيء بنش مركز كإنسدادي معرفتي نور الفيديو marka taas qadiyadaha guud iyada ay tahay qadiyad uusan shakhsi lahayn madaxweynuhu waa shakhsi watay kara caawa Cabdiweli tii Allah u iimaan karta farool uu tagay waxa laga qaaday doorasho birina Cabdiweli doorasho ku tagay laakiin waxa aan dhamaanay waxa way qadiyada oo anaga dhan reer Puntland daliya dibad meel kasta aan joogno saqiir iyo kabiir aan u taaganahay taasna inuu iyadoo qadiyad ah in maxaan ku dhahay laga sii anbaqaado Cabdiweli madaxweyne Cabdiweli waxaan isleeyahay waa shakhsi u bisil fahmina kara يعني دلدلولada iyo rabitaanka iyo meelaha wax ka khadday marka laga hadlayo federaalka maadaama uu ka soo shaqeeyay oo xil muhiim ah uu ka soo qabtay runtii intaas ayaan uga baxayaa waxaan jeclahay inaan madaxweynaha aan uga mahad celiyo xukuumadda cusub waxaan ku leenahay hadaan gabdhaha nahay 5 wasiir 2 wasiir oo aad iyo aad runtii muhiim u ah iyo 3 wasiir ku xigeen waa taariikh waa history ووحن بنتلان هراء وقدعين بنتي الصومالية هراء وقدعين أنت كم قناعسنين لكن وابلو في عن مركا مدحوينها وحلينا آدي بأيضنا محن كلها أقومها تصنت هاي إجرها هذا الكون اللي ردت كود دالين آدي دومها تصنتين آدي هذا يوم ما صنت هاي فاطمة إبراهيم وحلتها دلنت واستوسع حتى أبواب قد هذا يربان ويرا يا شرماك عرب كدبنا وحنا قلنا عليكم ورحمة الله وبركاته دماتين همبلية جودي ومد قال هند واحد دريا مدحوينها دولة بوتلان عبدولي محمد علي قاس وحنا همبلية لبعض دريا مدحوينه حلك وجهري فرالة دمان أنتي وجهري سبوتلان حلك صاحبتنا واحد دريا إن وحنا دوني هذا البدل اللي يوم برينا ضحك الله سبحانه إذا ما نسوين كان كعبر عيارك تدا وحنا جعله جوي بوتلان ما نسد بوتلان مركز حفلة بلدان كتير وحنا هاي بلدانديس نبض لجو بربارشو بربركية علادي بلايدي لسومر ربي بيجبا جو برواقع كنولا بوريه سناجي يسول بحديسي بري نقالي مدق بالهيسي بوهد لئي عين بوساسو يدهر برهانتي خردودي كركار برشيسي لا سعانية بنان هود برانية قروية بورتينية قلدوغب قال كعية بارقال بيلية لاسخوري بوعامية عيل برانية تلحوعن بهدي عن كبير ميو بلشدي بلاني برواقية خيرية بلعية وناقي برخانتي دولكيجي بدباددي دالكيجاي علنكا بلوغاي كبابدا دويا ميشو كبير مولوغو باهي تري برمد بالوتا هاي قول بشارة دوتا هاي خير دبتا إيا بلايا ربي كوغوما بيغو دنك بديحدا كامري هدام بارلمان تلين باور ملح دولدي وحن باقو ديريا فرين بالو قريا اغويهان كبوغيو بيكسانا ايا قلين كوغو دارشي بقركو بلهان كومريه كوغو دارشي بقركو بلهان كومريه باهيدا ددوينها سابول نمدا بابي باسين كسوسار باترول كييب جي بيدي يفوحيو ميديغانا صوبحي بدل لبدا نوع خيرات كبوحيو كلونكا اسبال مري وبسلي ددوينها حبوك سودا نبركيا
وبقر إلهي وديس وبدن بلشدان كبير ماي بلانتين وقول بدانتين ونبض بوغا iyo qalinkii oo ku dadaal waxbarashada baawurkii aqoontuna yaanay baylah ka noqon batroolka soo saar baasiinka iibgay beegsada dadweynaha satellite-ka baaldega Britain iyo America Russia la baratama baalka dhaafa jeynaha waxaan doonayaa in halkan maasa aan ugu talagalay hablaha ama gabdhaha ama haweenka ama hooyooyinka reer Puntland oo aan aaminsanahay inuu yihiin haweenku dhammaanba Soomaaliyeed tiirka Soomaalida ay ku taagan tahay hablaha wada dega Puntland bureeqada hagar la'aanta dadkeeda u hiilinaysa hufnaan ugu hagar baxaysa hormuudka u ah bulshada hanaanka talaabada iyo habsami socodkooda iyo quruxda lagu soo hirtiyo akhlaaqda iyo haybada haweenka badheer yihiin shaqada hardworker iyo dhamaystirka hawlaha ay haweenka badheer yihiin hidiyo dhaqankay sitaan hugoodii bay wataan hagoog bay xiran yihiin hore ay u tallaabsadaan hurdada magam aan dharaar hiil iyo xoobay sidaan wax khayr leh ku hadriyaan hooyiyo waa eedo iyo dumaashiyo habaryaro wanaag baa wada huwane hore u socod bay rabaan hoggaan daacaday rabaan barwaaqo lagu hirtiyo hanaan midnimay rabaan badbaado Allah haye bulshada iyaga u heelan habeen iyo maalin bay naftooda u soo hureen hamigu fakar buu dhalaa hanasho guul bay dhashaa heshiis nabad buu dhalaa barwaaqiyo horumariyo hanaan midnimuu dhalaa hoggaan daacaduu dhalaa habsami nolol bay dhashaa hilaac roob buu dhalaa hadlaya waxaan uga socdaa hoggaan uga dhigay murtida horseed haw noqon olaad hormuud haw noqon waxyeelo hubsiimo waa lama huraan hankaagu xidigaa ha gaaro sidii hogo roob hadda oo kada hagartiyo hungada hadlaya waxaan uga socdaa hoggaan uga dhigay murtida haraad biyo hawdawa harbaa yare lagu nastaa horaa loo tallaabsadaa wanaag baa la hiigsadaa hurdada waa laga kacaa wax khayr la lagu hadraa nasiibku hadduu habsaamo nafsigu ka hungoobi maayo marbaad ka heshaa hortaada hilowga waxaad u qaaday hadlaya waxaan uga socdaa hoggaan uga dhigay murtida marbaad hiiftaa waqtiga adoon hayn waajibkaaga marbaad furisaa dhibaato adoo heli kara nasteexo dunidu waa heerba heer hirkaa sare iyo samada rag baa harsadoo dego hoy iyo ka samaystay daaro hadlaya waxaan uga socdaa hoggaan uga dhigay murtida hal baan nahay waaxido hilbaan nahay wada dhasho hiil iyo how way isu haynaa hadlaya waxaan uga socdaa hoggaan uga dhigay murtida haddaan dowladnimo hagaagsan hormuud adagoo aqoon leh hoggaankeenii u dhiibnay ducada ayaan lagala harin mid yar aan kula dardaarmayo madaxweynaha hadda xilka loo dhiibay ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo xogaa Puntland mar xogaa yar oo ka dhacay baan rabaa inaan fariin u sii diro si uu mid say u ahaan jirtay Puntland u dib ugu soo celiyo dadkii kala dhaqaaqo kala dhuuntay waa dhexe isu soo dhaweeyo dhexdhexaadi weliga waa dhalad isjecel oo kala dhowrsan maayaan yaanay kala dhantaaline dhidibada u aasoo xilka dhabarka saaro u dhamaystir hawlaha geesi dhiiran baa tahay oo dhalad deeqsiyaa tahay ku dhiibnay taladoo ku dhamaynay waanada ka ilaali dheeliga marna yaanay kala dhicin shalay dhaawacii helay nabaradii ku soo dhacay maanta dhayma gaarsiiyey taariikhdu waa dhigan dhegtu maqasho weeyaan dhinacyada Puntland tahay lama simin dhammaantood dadka ka dhul sugayana inta dhirifsan baa badan dhaxalkay sugayeen qaar dhaafshay baa jira midsa aniga igu dheer baan doonayaa inaan dhaho dhiiga waa ka simanahay dhuuxuna mid weeyaan dhalashan wadaagnaa ruux dhaafayaan jirin dhammaanteenba waxaan nahay udub iyo dhigtiisa oo ehel wada dhashaan nahay assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wa mahadsantiin dhammaantiin mahad ilaahay baa iskale halkaan isugu keenay hadda maba garanayo waxaan kula qaybsado xafladan qiimaha iyo qaayaha leh oo aan sheego
hooyooyinkii iyo dhalinyaradii iyo odayaashii iga horreeyey ba hadalka nuxurkiisii iyo sharaftiisii iyo qiimigiisiiba tilmaamay wixii hadda anugu aan idiin sheego waa wixii hore inaan ku celiyo maahan wax kaloo siyaada maahan horta hore waxaan rabaa markaa laba arrimood ama saddex inaan halkan ka sheego horta waxaan u mahadcelinayaa dadkii xafladan sharafta leh soo agaasimay oo meeshaan dadkaan isugu keena quruxda badan aad bay u mahadsan yihiin xafladan qiimaha badan ay soo qaasimeen oo ay isugu yeereen dadka gobollada iyo dibaddaba mahad gaara baan u celinayaa midda labaad xafladda halkaan aynu isugu nimid aynu kusoo dhaweynayno Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo ku guuleystay 8 bishii January madaxweynaha Puntland waxaan leenahay hambalyo waxaase hambaliyo taa ka weyn oo sharaf iyo wanaag mudan shacabka reer Garowe oo fududeeyay doorashadii quruxda lahayd oo qaayaha lahayd oo ka dhacday magaalada Garowe waxaa sharaf mudan oo iyaduna ku xigtay ismada reer Puntland oo sida sharafta leh oo wanaag leh hawsha ugu soo agaasimay waxaa ku xigta mudan ciidamada amniga oo hogaaminayay Siciid Dhaare looma kala harin dadka shacabka reer Puntland ayaa wada fududeeyay xafladaas qiimaha doorashadaas qiimaha iyo sharafta leh oo ka dhacday Puntland dadka reer Puntland oo ah dad aad u qiimo badan sidaan anigu aan ku cabirayo dareenkayga jecelna dawladnimo jecelna in wanaag iyo horumar ay Soomaalidu horseedaan baa mahaddaas oo dhan iska leh wixii ka dhacay Puntland taageero meel walba baa looga fidiyay laakiin waxaan anigu rabaa inaan dadka taageeraya dawladdeena aan mid kale ugu daro dawladdu meel tii hore iyo tan hadda cusubba waxay u heelan tahay oo ay diyaar u tahay dadka iyo dalkaba inay wax u qabato waa haddii ay ka heshaan shacabkeeda gudaha ku jira iyo kuwa bannaanka jira taageero caqli iyo mid dhaqaale iyo mid fikir iyo mid waxtar intaba haddii ay ka hesho dawladdaas way hagaagaysaa laakiin haddii mid walba eed iyo aniga xukun layma siin iyo reerkayagii waa laga tegay iyo saas haddii nin walba ay soo wajahdo dawladdaasi iyo waxay wadaaba waxay noqonaysaa waxaan horey u socon aynu ka waantoono oo aynu isku baraarujino oo aynu ku dardaaranno in qof walba meesha uu joogo uu shacabkiisa iyo dalkiisa hadal wanaagsan iyo caqli wanaagsan iyo fikir wanaagsan uu kula qaybsado isagoo qof walba matalaya dawladda uu ka soo jeedo iyo maamulka uu ka soo jeedo qof walba meeshaadaad mas'uul ku tahay meeshaadaad dawlad ku tahay meeshaadaad caqligaaga iyo fikirkaaga la fadhidaa haddaad si wanaagsan fikirkaaga iyo caqligaaga aad u gudbisana si fiican buu dadku wajahaya u qabanaya haddaad si xun wax u tarjunto oo si xun wax u sheegtana si xun buu dadku wax ugu taabanaya waxana u dheeraynaya wanaagga iyo xumaantana mar walba xumaantaa dheeraysa oo aad u luga badan tahay walaalayaal marka waxaan kula dardaarmayaa dawladda meeshaas ka dhalatay Puntland waa dawlad curdana waxaanu ka rajaynaynaa wanaag iyo sharaf waxaanu ka rajaynaynaa inay wax badan qabato waxaanu ka rajaynaynaa hay'adihii dawliga oo dhan oo meeshaasi loogu yimid wax ka dhiman ma jiraan Dr. Farole maxaa ka gaadhay dawladdiisii waxa uu fududeeyay maantay dawlad taam ah inuu dhibay Dr. Cabdiweli oo ka dhaxay waxay u baahan tahay marka taageero shacab u baahan tahay haddii aadan dhaqaale ku taageerin hadal wanaagsan oo san oo aan duldulaal iyo turxaan lahayn ku taageer midka website-ka qoraya midka telefoonka diraya midka TV-ga ka hadlaya midka xafladaha tagaya si wanaagsan oo hufan oo hadalkaaga oo aan ku salaysnayn caadifad ama cid jeclaysi ama wax raadin inaad ku hadashaa fiican lama deeqsiin karo shacabka reer Puntland ee ku dhaqan Puntland xukunka iyo meesha waxa ka jira wasiirada lama wada deeqsiin karo xildhibaanada lama wada deeqsiin karo waxaad ogaataa ninka xildhibaan ku ordaya ama ninka wasiir ku ordaya ama xogeen ku ordaya ee bugaadsanaya waxaa sharaf badan ninka inta ka qaday deegaankana kula nool kana dhex shaqeeyay oo caqli wanaagsan iyo sharaf kula dhex shaqeeyay baa mudnaan mudan oo sharaf mudan oo cisi mudan ma aha in loo riyaaqo nin kale annaga reerkayga maanta waxba lama siin war 50 iyo 50 wasiiradood iyo 100,000 oo wasiiradood cidna ma magacaabi karto 100,000 oo wasiir ku cidna ma magacaabi karto waxaad ogaataan 50 ama 40 ama 30 la soo magacaabay sharaftii iyo dalkii iyo sumcaddii iyo wadankii ugu weyn ha lagu taageero ha lagu taanideeyo kii soo magacaabay iyo kuwa laga magacaabay si wanaag ah ku shaqeeyaan hana ku fikirnina inaad qof walba wasiir noqoto ama reerkiinu wasiir noqdo waxaan ka codsanayaa marka shacabka sharafta leh oo reer Puntland
inaad dalkiinni iyo dadkiinni ku xoojisaan caqli saliim ah oo wacyigelin aad samaysaan waddanku wuxuu u baahan yahay dad dhalinyaro ah oo wax bartay oo akademik ah inay waddankii tagaan maxayse la tegayaan ha la tegin adoo xukun doonaya ha tegin adoo raba inaad wax ka soo siyaasato ururaha jira dadku isku wacyigeliyo oo activities ah ururadaas waxay ka kooban yihiin la dagaalanka balwadda ururo la yidhahdo ha laga furo Puntland la dagaalanka maamul xumada ha laga furo Puntland la dagaalanka sida xun fakarka dad la yidhahdo ha laga furo dadku markuu fikirkiisa iyo caqligiisa isku biirsado wax wanaagsan baa ka soo baxa walaalayaal aad baad u mahadsantihiin hadalkuna waa aad buu gaaban yahay walaalkay cawil baa hor taagan marka dadkuna waa badan inaan ku dheerayana ma rabo intii naas waxaan idin mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad meeshaan isugu timaadeen waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Gaas oo wala qayb galay taleefanka aad baan ugu mahad celinayaa dadkiina halkaan degan odayaal iyo dhalinyaro aad baan ugu mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آدم سيد أحمد. وحروا أنا ويا سعيد سواحلي وحروا إنه كل ودي سد كأذن حفلة ده صدوا وين تعال وكان قيم كرام صدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan mahadnaq ballaaran u jeediyo dhammaan dadweynaheena sharafta leh ee ka soo qayb galay munaasabadeena weyn ee aynu ku taageerayno isbeddelka weyn ee siyaasadeed ee ka dhacay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay xafladan sharafta leh ee la yaabka leh ee aynu ku muujinayno iyada lafteeda taageerada iyada ah oo aynu ku taageerayno labada dawladood ee isbedelay shantii sanadood ee hore ee ina soo dhaafay oo uu hogaaminayay mudane Cabdiraxmaan Faroole Cabdisamed Cali Shire iyo dhammaan dawladdiisii tan kale oo yana hogaaminayo oo uu noo bilaabay Cabdiwali Cali Gaas maxay ahayd ku xigeenkiisa oo ah Mr. Cabdi Hakiim Cabdullaahi Camay waxaan idin leeyahay waanu idin taageeraynaa haddaad tihiin dawladda cusub waanuna idin soo dhawaynaynaa waxaanuna idin leenahay hambalyo qoladan kale ee banaysay meeshana waxaanu leenahay way idin mahadsan tihiin Puntland waxay idin soo gaarsiiseen meel la yaab leh meel ay adduunyadu aad uga yaabtay oo aad loogu farxay oo noqotay incredible waxaan la rumaysan karin ma haddaasoo dhanna waxaa iska leh raggii soo shaqeeyey Cabdiweli markaa waxaanu leenahay waxaad u timi meel diyaara adigana waxaa lagaa rabaa maalinta aad xukunka qabsatay ee ayaantii dhaweyd bisha 8 ilaa 5 sanadood ee soo socota inaad meesha geyso meel aad loogu farxo oo ka sii weyn tii hore intaasi waxa weeye soo dhaweyntii iyo magaranaysaa siisagootintii labada dawladood ee isweydaaranayay waxaan rabaa marka amaanta iyo maaragtay de way farabadatay iyo support gareyntu marka anigu inaan dhinac kale uga yarbeeyaan rabaa 3 qodob baan rabaa inaan sheego oo tala ah 3da qodob mid waxaan u sheegayaa madaxweynaha mudane Cabdiwali Cali Gaas waxa weeye Mr. Cabdiwali Mr. Professor waxa weeye wax weyn baa laga sugayaa markii aad campaign-ka ku jirtay waxaad ballan qaaday waxyaabo fara badan waxa hubaalo qofku markuu campaign-ka ku jiro waxyaabo fara badan buu sheegay laakiin xaqiiqadu waxa weeye campaign-ka waxa lagu sheegay wax badan kama suuro galaan marka waxaan ku waaninayaa Cabdiwali waxaad qaadataa wixii loojiga ee aad isleedahay dadkana waa anfacayaan dalkana waa anfacayaan saasaan Cabdiwali kula talinayaa midda kale waxaan kula talinayaa midnimada Puntland Cabdiwali uu garanayaa meeshii laga sameeyay iyo raggii samaystay waa in la isla doonaa oo aad isla raadisaa anoo og inay sheekadu bilaabantay haddana ha ka daalin arrintaana waa dardaaran midnimada Puntland waa wax muqaddas ah اللهم صل على محمد مركز تاكل قدبنا Cabdiwali waxaan leeyahay dawladdiisa waxa idin horta la xaashad cad white paper wixii aad ku qorataan xaashada markay 5 sanadii dhamaato waa idin qoran tahay waxayna gali doontaa taariikhda haddii ay tahay wanaag aad Puntland u qabateen iyo haddii ay noqoto dhaliil taariikhda qori doonta qoladii ka horeysay taariikhdoodu yana way qoran tahay marka waxaan idin kula ballamayaa Cabdiwali
على قاسية دولة ديسو بنتلان marka ugu horeysa waa inay idin support gareysaan oo ay wixii ay u qaban kartaan qabataan mar labaad waa inay idin maskaxda ku haystaan midnimada ummadda Soomaaliyeed waa muhiim maamul goboleed wax uu tarayaa ma jirto laakiin waa meel aynu beeska ka soo bilaabayno sharafteena iyo qiimaheena meel kale kuma jiro wuxuu ku jira Soomaali weyn calanka buluuga ee xidigta leh halka aynu ka soo bilownayna waa maamul goboleedada teeda labaad Abdiweli waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed ilaa maalintii aynu raad dhaqaajinay 60kii ah ilaa maantadan oo aynu burbur ku jiro waxay tirsanaysaa cadaalad darro aad u fara badan waynu la wada soconnaa ilaa yoomana hada cadaalad darro jirta haddii ay noqon lahayd maamul goboleedada iyo haddii ay noqon lahayd kuwii hore ee lixdameeyadii waxaa la rabaa Abdiweli Cali Gaas inaad ku dayato nin aqoon leh baa tahay inaad ku dayato ummadan islaamkii waxay lahaan jirtay rag philosophers ingenious people waa dad maskax leh oo cadaalad wax ku hogaamin jiray wax badan baad akhriday ka qaado dadkaasi sidii ay dadka ku xukumi jireen tusaale haddaan u soo qaato nin la oran jiray ash-shariic al-qaadi wuxuu ahaa nin xilligii taabiciinta nool Umar bin Khattab soo gaadhay ninkaas iyo baan rabaa inaan kugu xusuusiyo wiil uu dhalay sheeka dhex martay ash-shariic al-qaadi iyo wiilkiisii inanka uu dhalay ayaa waxa ay rag bays qabteen markaasuu wuxuu damcay inuu gartiisa si akhristo intaanu aabihiis oo qaadi ah oo islaamku dhan laga wada yaqaano aanu arrinta ula gelin oo maxkamadda halka kala gelin markaasuu gartiisa si akhristay waxa u soo baxday inuu gartii helayo ragga ay hayaan markaasuu haddana ku noqday wuxuu arkay haddana inaanu gartii helin wuu ku noqday wuxuu ogaaday inuu gartii helayo wuu ku wareeray wuxuu yiri maxaad samaysaa arrintii waxna waa ku muuqdaan waxna kuma muuqdaan aabahana waa qaadi aabaha u tago bal mashqac ku baadhuysiin ama waxaan raxmad ku yiraahdo jambal u tuur moogta odayga eeg oo maaragtay talada u dhiibo wuxuu yiri يا أبتا إن بيني وبين قوم خصومة يا أبتا إن بيني وبين قوم خصومة فانظر في الأمر يا أبتا إن كان الحق لي أخصمه وإن لم يكن لي الحق لم أخصم فقس قصته وحشي كدوية رك بانو يسهينا بو يري نمان بانو يسقوانا أفهم لغا مركا وحن كاربا بو يري أبو أرنتي باسي وير نقطة bal nimanka arrintooda eeg haddaan kiiska aan anigu xaq leeyahay dee waxa weeye dacwad baa soo nimanka ku soo kicinaya haddaanan lahayna dee waan iska daynaya odaygii intuu cadhooday oo hoosta ka cadhooday buu isaga aamusay waxba uma sheegin ma ogtahay wuxuu yidhi masaas ahaa orodoo tag buu yidhi fantaliq wakhasimhum dhaqaajiyo dadkan soo dacwee naxariisu ma leh laakiin wuxuu rabaa inuu daris lama ilaawana siiyo inanku sa wuxuu haystaa inuu aabihii gartii u kala sheegay moogta uu gar helay moogta mudiciyo madaacale waa la isu yimi maxkamaddii baa la isugu yimi odayga meesha xukumaya odaygu isagoo cadhaysan buu xukunkii markuu dhageystay buu wiilkiisii ku rogay inankii waa yaabo indhii baa soo baxay ila odaygu markii hore wuxuu yidhi iska tag isna wuxuu isla hadda odaygu wuxuu ku leeyahay iska tag waa lagu xaqayaa moogta odaygii waa ku riday wiilkii markuu ku riday buu iska tagay inankii isagoo khajilsan oo weliba la saaray qaraamaad inuu baxsho markay arrintaasi dhacday baa maxkamaddii lagu kala tegay takbiirtii baa la saaray allahu akbar dadkii joogay waa wiil iyo aabihii waxa meesha maxkamadda iyo dad kale arrintii markay halkaa maraysay ayaa waxa dhacday odaygii inuu gurigiisii iska tegay wiilkiina waa yimi wuxuu yidhi aabbo maxaad sidaa iigu gashay arrintaasina iguma dhacdeen haddaanan markhaati kaa dhigteen wuxuu yidhi aabbe adduunka nimaan kaa jecelahay ma jirto waxaad adduunka dul saaran laakiin adigaan kuu hiiliyey haddaan markii gartaada ku tusi lahaa oon ka oran lahaa waa lagaa gar leeyahay dee waad iska aamusi lahayd oo nimankaa xaqoodaad qaadan lahayd adna ilaahay baan ka baqay adna deris baan ku siiyey markaa mustaqbal baad leedahay buu yidhi berrito anaad i bedeli doontaa markaa waa inaad cadaaladda ku shaqaysaa waxaan intaas soo hadala uga wadaa Abdiweli Cali Gaas waxaan leeyahay wax badan oo mas'uuliyada ku saaran waxa laga rabaa cadaalad wax badan baa lagu la iman doonaa magaala lagu la iman doonaa xaafad baa lagu la iman doonaa saaxiib baa lagu la iman doonaa waxa soo dhan waxaad kaga garnaqaysaa cadaaladda hadalkaygina waxaan ku soo koobayaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay cadaalad waxay u baahan tahay istacayl marka dhamaanteen waa inaynu fulinaa sidii aynu maaragtay dee wadankeena aynu hagaajin lahayn hadalkiina waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya midnimo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه يوم ما تنيا سبيت وحروانا ويا عبد الكافي دعوين أنا بوحن جعلنا إن الناس تصاصف على الله قرنيا يمكن سعادتكم يعني هذا هذا وهذا قرنين كسر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول وما أسنت سولوين تسولويس. السلام عليكم مرحبا. وحان ربا مركلة إنكستو قدال كيميدو هذا الذي ينتي بدنا لنا فين. هذا مر لبات وحان ربا إنه بصوا حلية ضد بدنا وكشيء عبد الرزاق حاج حسين إن لها يوم حريستو إن المركلة فاتحة ومر. oday wuxuu ahaa inaga dhintay oday taariikhdu ahaa marka bal faataxada loo maro insha Allah in Ilaahay u naxariisto waxaan rabaa marka koobaad xafladda gabdhihii soo qaban qaabiyay iyo dhalinyaradii isku keenay meeshaan quruxda badan inaan mar labaad iyagana u mahadceliyo waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan oo soo aabushay xafladda marka labaad waxaan rabaa inaan laba waxyaalood oo yaryar ka hadlo labadaas waxyaalood oo yaryar ka waxay inaan rabaa caawa inaan halka ka jeediyo annagu haddaan reer Puntland nahay maxaana laga rabaa annagu maxaan rabnaa dawladda maxaan ka doonaynaa ayadu maxay laga doonaysaa intaas waxa loo baahan yahay inaan isweydiino annagu waxaan rabnaa sida Cabdiwali ba sheegay isbedel waxaan doonaynaa kaabayaasha dhaqaalaha oo dib loo soo yagleelo waxaan rabnaa isbitaaladii waxaan rabnaa waxbarashadii intaas oo dhan baan doonaynaa waa inta Cabdiwalina ballan qaaday waan rajaynaynaa inuu oofin doono annaga maxaa markana laga doonayaa annaga waxaana laga doonayaa laba aan u kala qaado qoladeena banaanka joogta iyo qolada gudaha joogta dadka gudaha jooga waxa laga rabaa dii ay rabaan dawlad wanaagsan ballan qaadiyadii loo ballan qaaday inay fulaan horta waa inay canshuurta bixiyaan waa inay ku dadaalaan inay canshuurta dhiibaan markii ay canshuurta dhiibaan markaasay dawladda la xisaabtami doonaan ayaguna oo waxay dhihi doonaan wixii naga qaaday dib ma noogu soo noqdeen ma aragna bismaana arag qoladeena banaanka joogta waxaana laga rabaa hadal kaliya laba rabo iyo inaan deesacabtuna aan dawladdu Cabdiwali isbedel ku dhawaaqay ilaahayna waa ku guuleeyay waana ka sugaynaa laakiin waxaa rabaa in la garab istaago maxaa la garab istaagi karaa waxaa rabaa dadkeena meesha jooga gabdhaha ugu furfircoon gabdhuhu ragga waa ka wanaagsan yihiin waxaan leeyahay gabdhuhu 10 gabdhood intay iskugu shiraakoobaan ha isku dareen 10 gabdhood oo min 20 kuna 20 kun waa 200 kun waa wax yar ma weyna 10 gabdhoodna waa la helayaa fiicano isku darsata 10 kaas 200 kun markii la helo waxay suubin karnaa warshad baa lagu gadan karaa wax kala lagu dhisi karaa wadankii maalgelin bay u noqonaysaa wax badan baa soo bixi kara waxa weeye dhaqaalihi marka dadku ayaga haya waxa rabaa fikrad fiican tii la isku geegeeyo in sidii loo garab istaagi lahaa falankeeda la qabto wadankii waa loo noqonayaa anigu waxaan aad u rumaysnahay Puntland meel fiican inuu keenay ninkii loo oran jiray Farool madaxweynihii hore waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aad baad u mahadsantahay waxaan leeyahay oday Soomaaliyeed baa tahay Cabdiwali asaga afkiisa ka qarayba oo wuxuu yiri dawlad wax kasta u dhanyihiin baa leeyihiin hadda waa ogay Puntland markii Farool imaan hayeen meeshii uu ka soo qaaday iyo maanta meesha ay joogto marka waxaan leenahay wax fiican bay qabteen qoladan dambeena waxaan ka rajaynaynaa wax ka sii fiican laakiin de hal dadaalo hal garab istaago السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحروا أنا ويا رحتنا سعيد عبد الله علي أو كلمة يسيسون غير هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد لطه ضدك يجي حفلة مرتجلين ضدك ديودا يكيمت أما هديك كلام عرقتي شرب عروس تاعها هذا بنادت كي بالقصور وهذا لطه هذه أدبان وهم هاد علينا يا ضدك هوشة هذاك نوع قليل هوشة بدن يا أباب الكحول قليل galay oo mudada dheer ku soo jiray oo xafladda sidaan ka dhigay aad baan ugu mahad celinayaa gabdhii haday la magacaabay iyo intii kale oo gacan ka geysto ku taageertay xafladdan caawa ah waxaanu ugu talagalay inaan ku taageero isbedelka ka dhacay Puntland isbedelkaasna waa isbedel la wada og yahay sidoo ahaa marka farxadiisii iyo taageeradiisii iyo hambalyeyntiisii baan caaway isugu nimid dadka faraha badan oo yimid oo meelaha kala duwan ka yimidna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin shacabka reer Puntlandna waxaan leenahay intaas iyo in kasii wanaagsan bawaad istaahishaan hanii'an lakum guushaas iyo barwaaqadaas idinka iyo Soomaaliya oo dhan oo qayb ka tihiinba waa u hambalyeynaynaa waa idinku dhiirigelinaynaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa taasi intaas weeye madaxda cusub oo xilka loo dhiibay ducaanu ku bilaabayna ilaahay idin fududeeyo xilka ilaahay idinku guuleeyo isbedelka iyo hawsha aad u qalab qaadateen madaxdii xilka wareejisayna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sida sharafta leh iyo horumarka ay soo gaarsiiyeen Puntland dhammaan shacabka reer Puntland waxaan ilaahay uga baryaynaa iyo Soomaaliya oo dhan horumar iyo nabadgelyo intaas haddii aan hambalyadii ku soo koobo waxaan rabaa inaan anigu aan isbedel baa loo baahnaa oo loo baahan yahay bini aadamkuna kama daalo isbedel inuu u baahdo oo mar walbaba uu yiraahdo war waa isii bedeli karaayaa wax wanaagsanno bini aadamku kama daalo Puntland oo hadda arrintu ku saabsan tahayna arrintaasi way ka mid tahay oo Puntland isbedel bay rabtaa anigu waxaan marka rabaa inaan kalmad yar oo tala ah isbedelku meelo badan baa isbedel u baahan laakiin anigu waxaan rabaa inaan tala yar halka ka geysto ilaa tala iyo tabarba waana looga baahan yahay qof walba waa looga baahan yahay wixii tala iyo tabar hayo anigu tala yar baan soo jeedinayaa taladaas waxay ku saabsan tahay waxa kan loo yaqaan canshuurta loo yaqaan lacagtan canshuurta loo yaqaan ugu horeyn waxaan oran lahaa waa wax aad u muhiim ah adduunku ku kala tagay qaadisteeda ama bixinteeda iyo maamulkeeda adduunka waxyaalaha kala soocay bay koow ka tahay canshuurtu marka canshuurta aan wali ku halqabsanayo si sabab ah oo ogaan aba waxaan u soo jeedinayaa oo ku talinaya anigoo nin oday oo Soomaaliyeed canshuurta magaca in laga bedelo fariintaas iyada ah Soomaaliya oo dhan baan u dirayaa xafladan caawa Puntland bay ku saabsan tahay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa canshuurta magaca in laga bedelo bini aadamka horumarkiisa waxyaalaha ka mid ah eray bixin mid hore eray bixin magac hore la bedelo iyo magac cusub oo la bixiyo iyo magac aan jirin oo la keeno eray bixin waa waxyaalaha isbedelka ama reformka loo yaqaano baa looga maarmin canshuurta hal la bedelo Soomaaliyeed sababta loo bedelayaa waxa weeye magaceeda Soomaali ma uu aha dan Soomaaliyeedna kama muuqato markaan garaadsaday iyo ilaa haddana canshuurtu isma bedelin waxay u muuqataa magacaasi inuu yahay magac baad ah ama mid u eg canshuur war maanaad canshuuraysa maana hadda canshuur iyo baad iga qaadaysa maana dhulkayga igu canshuuraysa maana meel deegaanka igu canshuuraysa maana shaqada haysa igu canshuuraysa maanigaad xagga igu canshuuraysa canshuurtu baad bay u eg tahay magaca hal bedel magac lagu bedelana lama waayin oo maskaxdeena iyo dadkeena iyo abwaanadeenu ka buuxaa iyo waayo araggeena laakiin anigu hadda mid murtida soo koobaya waxaan dhihi lahaa lacagta dan guud ha loo bixiyo marka waxba kama maqno dan guud ha loo bixiyo lacagta canshuurta dadka Soomaaliyeed laga qaadayo baan soo jeedin lahaa waa qodob waxaan kaloo soo jeedin lahaa canshuurta qaabka loo qaado hal la bedelo Soomaaliyeed canshuurtu waa waxa adduunku ku kala haray yaan laga dhigin wax qofka soo qaadaya iyo qofka laga soo qaadaya ku gorgortami karaan oo ay ku heshiin karaan way ka weynta sidaana hal laga bedelo
canshuurta ha laga bedelo nidaamka lagu qaado ha laga dhigo waxaan la dafiri karin ha laga dhigo waxaan la kala lagu heshiin karin ha laga dhigo waxaan dhexda ku lumi karin ha laga dhigo wax nidaam ku baxa oo qofku raalli isagoo ah oo isagu shahaado meel ugu qormaysa ah oo lagu xisaabtamayo aan dhumi karin ha laga dhigo markaas weelku waa buuxsamaya canshuurta si kalena ha loo bedelo dowladaha maamulaya oo xukunka haya Soomaaliyeed canshuurta sida loo maamulo ha la bedelo canshuurta dadweynuhu wuxuu ku qanci karo sida loo maamulo ha laga dhigo kalsoonida dadka Soomaaliyeed waxyaalaha ka dhiman inay soo noqoto canshuurtu waxyaalaha ka kooga way illa waa wixii ka dhaxeeyay illa waa wixii la bixin Soomaali baynu nahay dadka waaweyn war iskuma keenseegana canshuurta Puntland oo caawa xafladan leh baan toos ugu soo jeedinaya madaxweynaha cusub 5 sano oo haysta iyo dawladdiisa iyo tiimka la shaqeynaya iyo dadweynaha reer Puntland toos bay ku tahay Soomaalida kalena way khusaysaa inay ka faa'iideystaan lagama xigo canshuurta dhammaan qaabkeeda hal la bedelo waxaan aaminsanahay Soomaaliya canshuurta haddii aad sidaa aan sheegay ula dhaqantid inaadan dibad aadan waxba saas uga baahanayn waayo wadankan hadda aan joogno waxa weeye khayraad saas ma lihin bay yiraahdaan laakiin nidaamkooda aad u adag waxaas canshuurta la yiraahdana wasaaraddan bay u leeyihiin oo wax kala qaban wasaaradda canshuurta wasaaradda yiraahdo ama wasaaradda lacagtaas aan magacaas aan dhahay la bedelo wasaaraddan oo wax kala qaban bay u leeyihiin waxay leeyihiin wasaarad kale oo la yiraahdo economy minister bay leeyihiin waxay leeyihiin wasaarad kale oo la yiraahdo finance minister bay leeyihiin innaga canshuurtu waana waxaan u baahanayn mana qiimaysna waxaa dad meelaha iska warwareegaya wax saasa loo diraa dabadeed wixii haddaadan muhiim ka dhigin lama helaysid anugu taladaan soo jeedinay waxa weeye canshuurta ha la bedelo habkeeda ha la bedelo magaceeda ha la bedelo maamulkeeda ha la bedelo canshuurta kor ha la keeno magaceeda iyo maamulkeeda qofkii canshuurta bixiye iyo dadka canshuur bixiyayaasha magacooda kor ha la keeno ha la sharfo ummadda canshuurta meelaha ay ka timaado ha la sheego TV-yada ha laga sheego joornaalada ha lagu soo qoro ha laga dhigo canshuurta wax sharaf leh oo qofkii bixiya oo ajar ka helaya sida magaca loogu magac bixiyo halka ay hadda ka tahay qof baad ka cararaya ama qof dambi ka cararaya canshuurta inuu bixiyo dadweynaha Soomaaliyeed dhexdiisa canshuurtu sharaf kama leh ama kalsoonidoo dhiman ha noqoto ama wax kale ha noqoto marka waxaan kula talinayaa Professor Cabdiwali iyo dawladdiisa anigu talooyin badan baan hayaa dadweynaha Soomaaliyeed talooyin badan buu hayaa laakiin anigu waxaan leeyahay canshuurta haddaad ka bedeshaan qaabka ay tahay waxyaalahaas aan soo sheegay ka mid yihiin kalsoonida dadweynaha Soomaaliyeed kalsoonida dadka aad maamuleysaan waad helaysaan dalkana aad waxaad rabtaan aad u qabanaysaan waayo waxa suurooda hadda canshuurta 10% inaan la qaadin dhawaan baan Puntland ka imid magaalooyin dhan oo aan canshuur la qaadin baa jira meelo dhan oo canshuur la qaadin baa jira wax badan oo aan canshuur la qaadin baa jira marka canshuurta dadweynaha iyo dawladdu fadhi dheer ha galaan ha bedelaan qaab ha u helaan lagu midaysan yahay oo canshuurta qofku isagoo raalli ah uu bixiyo sida baabuurka meesha ordaya hadda ee nidaamka loogu helay oo baabuurta loo canshuuranayo iyaga laftooda dad canshuuraha diidan baan arkay baabuurtan raba inay wataan taasoo aan macquul ahayn marka nidaam waa in la gaaraa dadweynaha iyo dawladdu ay raalli ku wada yihiin canshuurta in la bixiyo mana imanaysa jeer canshuurta maamulkeeda oo dhan la bedelo oo dadweynuhu ay ogaadaan canshuurtu waa dan guud waa dantayda waa danta dalkayga waa danta ummadayda waa danta mustaqbalkayga waa danta caruurtayda waa isbitaalkii waa waxbarashadii marka hadalku waa idinku dheereeyey aad iyo aad baan idinku mahad celinaya dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Siciid waa qaadanaynaa taladaada fariintaasna waa gudbaysaa insha Allah bal waxaan u dhiibay Cabdikariim oo isla maxaa lagu gadaal mariyay laakiin weligeed taladooda dib baa loo dhigi jiray kusoo dhawaad Cabdikariim waana laga maqaana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dadku waxay ku bilaabayeen maqruuqa in marka hore u mahad celiya anigu ilaahay baan ku bilaabaya ilaahay baa mahadle nabcada aan haysano dhammaanteedna ilaahay baa ina siiyey ilaahay waa inaan ka baqnaa oo si dhaba waa inaan uga baqnaa labadeena garab waxaa saaran
laba malag labada la garab laba malag baa saaran wax walbana waa qorahayaan aan ku hadlo haday u yihiin hadaysan yihiin waxaa dheer dhulkaas aan ku socono aad arkaysaan waa inuu ku markhaati furaya waa aayad quraan yawma idin tuhadisu akhbaaraha dhulkaas aad arkaysa aad ku socoteed waa ku markhaati furaya qol haddaad soo xidhatid iyo sariirta haddaad hoosta ka geshid markaas waa ku markhaati furaya jirka aad leedahay jirkaas adigu aad leedahay baa ku markhaati furaya oo saasaa sameeyey saasaas oo ilaahay afka ka hadlay jirka kalena waa ka hadlin karaa marka ilaahay aan ka baqno si dhab aanu ilaahay uga cabsano maalin walba waad aragtay halkaa dad baa lageeyaa lagu xabaalaa kiis gaara ma dhigelinay innagu waa inagoo kale sidaynu u fakeranay u fakeraya adduunyadan ku fakeranay u fakerahayeen marka ilaahay aan si toos uga cabsano taas waa lagama maarmaan inaan isxasuusino dad muslima meel isugu yimid baanana intaas ka bacdi dadkii walaalaha ahaa oo meesha yimid waa mahadsan yihiin dadkii xalfadda soo agaasumay haddii la hadlayay gabdhii xalfadda soo sameeyey dadkaas waxaan leeyahay aayahooda ha ka tisareen aayahooda inay ka tisaraan loo yaa Puntland inay xukunto yaa lagu khasbin Somaliland inay xukunto yaa lagu khasbin aayahooda ay wax ka tisareen anigu taas baan leeyahay yani qofku isagoo xorab u dhashay isagoo xor u ku noolaa u waraa marka waa qofku waa inaan badqan lagu qalqasbin wax xornimo darro waa lagu qalqasbin ninkasta si xornimo u jecel yahay baa qof dadka walaalka ah xornimo u jecel yahay marka dadka waa in xorriyadooda loo ogolaa iyagu meeshay doonaan amareen Soomaaliya hadday ku darsadeen Puntland hadday ku darsadeen maamul goboleed dadka kale say u samaysanayaan waa in xornimadooda loo ogolaado
أنا وأنت أصلا كجب حياة قال لي هذا السلام عليكم ورحمة الله. هذه يوم سيء عبد الكريم والله صعبي ومضيع وحنودي وياه ما عرفته إن كلمة هذه. السلام عليكم وندي السلام يا دمان مدنها يا شيء مروين كقصة قريب كل حفلة واحد بدن ما أرنيه وحمد مدن إلهي مرك لبعضنا وحمد مدن قبل قبياشي سو قبل قبي حفلة يا أصحاب تيدا يقص الشفاي هلكم أدب مهتسنتين waxaan ahaa dadkii ololihii hore ku jiray aadna sacabka u tumeeyay cagta iyo jaantaba iminkana inaan hambalyo idhaahdo ayaan oranayaa oo kaliya kulli kelmado badan ma hayo taariikhda kama sheekayn karo waxaan ahay hooyo u baahan waqti badan qurbaha joogtay u baahan isbedel dhaba ah inuu ka dhasho wadankeena wada eefa meel kasta oo Soomaali joogto oo dhan run ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay dhaqdhaqaaqa cusub ee ka bilaabmay dhammaan guud ahaan gobollada Soomaaliya oo dhan aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan jecelahay waxqabadku inuu gaadho dadka reer miyiga ah wacyigelin in lagu sameeyo dadka tuulooyinka degan dadka dhibaataysan kuwa curyaamiinta ah kuwa dhimirka xanuunada qaba iyo dhammaanba hooyooyinka aqoonta haysta oo dhan gidi inuu gaadho xukunka wadanka ka dhashay cabdiweli aad iyo aad ayaan ku leeyahay hambalyo run ahaantiina waxaan rajaynayaa oo aan yacni aad iyo aad aan u dareemo mar walba aan sidahdaa runtii madaxda dhalata waxa ka maqan inay taabtaan waxqabadkooda oo ah maaha in magaalo kaliya la fadhiisto waa inuu madaxweynuhu u noqdaa qof ka mid ah bulshada oo bulshada dhibaataysan uu isagu ogaadaa u tagaa wacyigelin loo sameeyaa dhalinyarada jaamacadaha dhamaysay ee haddana tahriibaysa aad bay caloolxumo noogu reebtaa mar walba waayo hooyooyin baanu nahay carruur haysta mustaqbalka carruurta Soomaaliya aad iyo aad ayaan rajaynayaa inaad wax badan ka qabato maadaama tahay aqoon-yahan iftiin ka dhashay Puntland walaalahayga Puntland waxaan leeyahay hambalyo farxadda waan wada ciyaarana sacabkan inoo tumo aad bay u wanaagsantahay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa hibo dhanka dhalinyarada hal codsiba iiga yimid marka aan cabdinaasir baan u dhiibayaa majaajilo yar baa ku xigaysa xafladuna waa inoo xirmaysaa waana mahadsantihiin axmed soo dhow الله سبحانه وتعالى isugu keenay meeshan inuu suurtageliyo xafladan qiimaha badan inaanu qabsano waxaan kaloo mahad u celinayaa qabanqaabayaashii sharafta badnaa madaxda cusub Puntland oo doortay gaar ahaan baarlamaankii sharafta badnaa haddii la koryahay hadda Puntland nasiirkeeda ama dadka codka shacabka meeshii ay lahayd ama booska ay lahayd dhigay anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada xafladana kaga faa'iideysanay waxaan rabaa halkan marka koowaad inaan tacsi uga diro ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ahaa runtii nin in badan taariikhdiisa in laga sheekeeyo mudan asagoo dhalinyaro ah ka mid noqday ururkii SYL oo xornimadii Soomaaliya maanta gobonimadeeda keenay runtii markaan maanta taariikhdiisa isagoo laga sheekeynayo meel aan ka maqlay waxaan professor Ines Ciise Matiro ka sheekeynaya taariikhdiisa waxaan ka maqlay arrin aad
qalbigayga u taabtay oo ah nabarka maanta dhibta uu u dhintay oo sababtay geeridiisa waxa la yiri waxay ka soo gaartay asagoo oo u shaqaynaya gobonimadii Soomaaliya oo cadowgii markaa dalka haystay ee gobonimadeeda la raadinayay intay guri ugu tageen ay garaaceen oo markaas nabada ka soo gaareen nabar darteed buu dhintay baa leeyahay waxa markaa halkaan oo kaga faa'iideysanayo u dirayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland sidii dhalinyaradii SYL ama hadii la kooriyo dhalinyaradii Soomaaliyeed ee taariikhda ku xusneed ay magac ugu lahaayeen magaca Soomaaliyeed oo ay hadii la kooriyahay u qaban jireen yani wax ummadda Soomaaliyeed dan u ah inay ayaguna ka muuqdaan Puntland ay ka noqdaan hadii la kooriyahay hormuud hadii la kooriyahay oo ay ka mid noqdaan dhalinyarada maanta hadii la kooriyahay xilka inay u tirtamaan oo xilalka wax ka qabtaan oo dawladii ay hadii la kooriyo meel badan ka taageeraan waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro dhalinyarada Soomaaliyeed oo gaar ahaan Puntland hadda ku haminaysa inay inta ka soo taaribaan ay dalkii ka soo tagaan oo saxraa ku baabaan waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro dalkiina ayaad sharaf ku leedihiin dalkiina ayaad hadii la kooriyo magac iyo sumcad ku leedihiin dalkiina ayaad xorriyad wax ka qaban kartaan inaynan badaha iyo dhibaatada u soo bareerin oo ina soo marin waxaad maanta ama meediyaha kala socotaan ama meel walba ka maraysaan dadkii hadda badaha soo maray boqolkiiba 50 inta khasaartay oo badan ama ha soo gudbeen oo qurbaha ha yimaadeen ama ha weli badaha ku baabeen waxaan aaminsanahay boqolkiiba 50 inta ka khasaartay ayaa ka badan inta ama inta wadanka